اوكي halkan waa qarannimo online oo suura gashay in aan wareysano gabar Soomaaliyeed oo aad iyo aad wacdar ka muujisay shirka la isugu yimid adoo magacaaga saddexdoo sheegay maxaa yani caawa yani qiirada dadka aad gelisay sidee ay ku waay magacaygu marka koowaad waxaa lahaa maasaba kuucow anigana 24 sano jira alxamdulillah waxaan deganahay magaalada Toronto sanadkan waa sanankii aan ka qaban joognaa jaamacadda sugaanta Soomaaliyeed yani waa waxaan iska jecelahay sidaas ayaan caawis wada xafladan ugu soo qayb galay okay sugaanta aad jeclaatid laakiin inaad jeclaato aan barato yani maxaa ugu kalifay hay wallahi waxna yani guri waxaan ku soo koray oo maanta dhan laga gabyaayo heesadaa marka caado ii noqotay inaan iska sii barto marka guriga aad ku nooleed ayaa maaragtay sugaanta laga raadiyaa aad mar walba aan yani hees waxaan iska ahay qofka oo dhaho hay heestaan yaa qoray maxaa laga wadaa ii macnay okay maadaama aad marka arday Soomaali ah gabar ardayad ah oo aad dhigato jaamacadda aad Soomaali farabadistaa ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda kula dhigato wiilal iyo gabdho ma uga sheekaysaa ma ku gubaabisaa inay bartaan afka ma wallahi billahi maya waxa soo mahay waan jeclaa lahaa laakiin kulligeen waa isii dhaafnaan laakiin inta aad fursad u heshay inaad la sheekayso waa la sheekaystaa marka ma uga faa'iideysan mu sheekaysaa waa u sheekaya laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed yani sugaanta Soomaali wax ay xiiseeyaan ma aha sidii anigoo kale waa gurigaan ku soo koray sidaas aga dhiga ma ahine qofnimadeyda haddii aan ahaa lahay Soomaali oo yani dhalinyarada iska caadiga ah uma malaynaya inay suurtagal ahaa lahayd okay adigoo su'aasha ugu dambaysa aan weydiinayna waxaad noo sheegtay inaad barato cilmiga garyaqaannimada ama lawyernimada marka haddii aad barato ma jeceshahay in aad inta badan sida aad ogtahay ardayda ilmaheena sida ay ku baxaan especially jaarida inaad uga faa'iideyso aad iyo aad waan jeclaan lahaa hadduu aabihii ogolaado ilaa iyo waqtigaas inaan noolaado cimrigayga sii dheereeyo aad iyo aad aan u ogolaan lahaa aad iyo aad ay u mahadsan tahay wanaagga meesha ka wata marka ugu horeyso talaan balaaran ayaan u soo jeedinaa dhammaan shacabka ku aftirsado qabiilka iyo magaca Soomaali talaan gaar ah ayaan u soo gudbinayaa adeerkay macaan Ukash Buucow oo wehelkiisa koo ii ah waalidkaygii aan wax walba kala qaybsado sidoo kale waxaan rabaa sanaan qaali ah oo kasha iyo laabta iyo xididaha dhiigga sida kasoo go'ay inaan ku salaamo mudane Maxamed Ibraahim Xadraawi Lalu
inaan akhristo oon barto sugaanta Soomaaliyeed caqabeeda sida shirarka gabayga maantada iyo heesooyinka abwaaniintan aad iyo aad u xiisay waxaa ka mid ah cabdulqaadir xirxirxiyaad yonyo شرعي إلى جاي هذا كرتارو وأنا
qabuuraha ciyaani iyo qubqa iyo qoriga iyo qaybada ruuxa nafta qasri iyo qaadada lagu qabowga iyo quraan oo qoraxda noogu dhacda iyo qasaaro ka daran iyo qurbaha kugu qaabilo qasaaro waa aabihii qoonta badnaayo dhulkeena kor loo qaadi jiro qurbaha qiimihiisa in ay ka soo qaado nin qarbanoo fadhi ku darar ahoo